Paul Pogba ayaa la soo laabtay bandhig cajiib ah tan iyo markii uu baxay Jose Mourinho wuxuuna noqday hogaamiyaha kooxda taasoo ninka khadka dhexe u horseeday in loo magacaabo laacibka bisha ee kooxda Manchester United. Laacibka reer Faranse ayaa ahaa mid aad ula kulmayay dhaleecooyin xoogan kadib ciyaar liita uu soo bandhigay kulamadii u dambeeyay uu kooxda leelinayay Mourinho kahor inta aan la ciirin 48 saac kadib guuldaradii Liverpool ee 16 December. Pogba wuxuu ahaa bedel aan la isticmaalin kulanka Anfield laakiin iminka waa lafdhabarka shaxda maamulaha ku-meel gaarka ee Ole Gunnar Solskjaer. Pogba ayaa ahaa mid muujiyay waxtarkiisa kooxda Manchester United taasoo adkaatay 5 kulan xiriir ah. Pogba ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta laacibka bisha ee United talaadadii kadib markii uu waqti dambe gaaray Dubai halka oo kooxda ay ku qaadanayso tababar isku kuleen ah 4 maalin iyadoo xidigan la daawanayay xarunta kooxda ee Carrington. Pogba ayaa ka maqnaa kooxda kulankii Sabtida ay 2-0 uga badisay Reading koobka FA Cup-ka kadib markii uu dhaawac gaarsiiyay laacibka Jonjo Shelvey dhashii ay guusha ka gaareen Newcastle United kulankii u dambeeyay ee Boxing Day.